mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa 20aad ee wadajirka ah waxaana shir gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenada labada aqal ajandaha kulanka wadajirka ah ee maanta waxa uu ahaa dib u eegista dastuurka marxaladiisa labaad iyo ka doodista soo jeedimaha wax ka bedelka dastuurka gaar ahaan cutubka 9aad qodobkiisa 130 ilaa 154 gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in dooda cutubka 9aad ee dastuurka ay sii socon doonto isla markaana la sii abaqaadi doono kulanka xiga ku mahadsantihiin berrito haddii alle insha Allah ajendaha waa ansaxsan yahay waxaan rabaa in waqti hore dood bilaabato si aan qodobkan aan u dhameeyno marka fadhigaana maanta waa in loo xiran yahay